qofka Soomaaliga ah waa inuu fahan wanaagsan ka haysto adeerka marka xil loo dhiibay inuu adeernimadii horta ka baxay ma aha caaqil reerkiina ah ma aha adeerkii tuuladiina joogay mana aha walaalka ayaa abaha ninkan waa mas'uul ummad Soomaaliyeed wuxuu mas'uul u yahay ummadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo dhan wada leh haddii waa la dhaliilayaa wanaagu sameeyay la sheegaya kuwa nacaya kuwa jecel kuwa nooc walba ay leeyihiin isugu jiraan dadku haddaad rabto markuu qof dhaliilo inaad soo boodado haysato in reerkiini la ataagay dacdar ummadda Soomaaliyeed ka hor leexiyo xaafadiini la tagaadhiga u diro ama caaqil reerkiina ka dhigo ma ahaan karayo mas'uul ummad Soomaaliyeed waxa aan aad ula yaabay hadalka Naciimo Qorane waxay ku leedahay booskan dawladda federaalka Soomaaliya waxa lagu joogaa 4.5 sidaa daraadeed qofka madaxda ah oo yimaada ma ahan qof adiga ku matala maahan waa qof shacabka Soomaaliyeed si guud madaxweyne ra'iisul wasaare xildhibaan kulli si guud duuduubahaan wuxuu u matalaa shacabka Soomaaliyeed waa qof ku isman shacabka Soomaaliyeed sidaa daraadeed waxay ku leedahay haddii uu kugu hayb yahay oo aad rabtid inaan wax laga sheegin waxaad aadaabay ariga u dirso ariga xiradiinii u dirso ama waxa ka dhigataa caaqil nabadoon arrimaha qabiilkaaga u xilsaaran yab salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kaliya muuqaal cusub bartan aad iga dheganaysaan waa bartiinii waa barteennii waa bartaan ku kulmi jirnay waa la ka hamiliyo baro aad iyo aad u mahadsantiin kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay allah ayaa mahad iska leh haddaasoo midaan la soo koobi karin ka mugiyo miisaan weyn dunida dhammaanteed nabigeena aynu ku sallino sallallahu calayhi wasallam ilaahay aynu ka cabsano xilli salaad hadday ku tahay kac salaada tuko intaa kadib sheekh cabdi xirsi oo ah nin dhinac sheekh ka ah Soomaaliyeed dhinac ka ah wariye Soomaaliyeed saxafi Soomaaliyeed ahna dadka dawladda aadka u jecel oo ah 100% sidaan ku arkay dadka jecel in dalka Soomaaliya ay noqoto dal madax bannaan wanaagsan mar walbana jecel in dawladda Soomaaliya ay noqoto mid aad u quwad badan ayaa wuxuu waraysi ka qaaday gabadhan la yiraahdo Naciimo Abwaan Qorane oo gabar aad iyo aad ma sha Allah aftaamadu ah sida aan ku arkay gabadhaas waraysigeedii dhinacyo badan buu taabanay bal wixii fikirkeena aynu ka oran doonaa marka hore aynu bal iyada daawan iyo wixii dhexmara bal sheekh u haysay dawladdii hadda la bedelay maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka ah mudooyinkii ay farmaajo xukuumaddiisu jirtay dawladdiisu jirtaan iraahdo waxaan ahaa shaqaale ka tirsan madaxtooyada gaar ahaan xafiiska arrimaha bulshada waxaan ka ahaa agaasimo waaxid iyo actin xafiiska ma sha Allah marka waxaad ahayd qof madaxtooyada si official ah shaqaale uga ah kow waxaa baryahan dambe soo cusboonaaday weerar adiga kugu aadan weerarkaasoo aan aragnay hadda baryahan stageyo kala duwan maraya ama heerar kala duwan maxaa is leedahay waa loo sababayn karaa hortu sidaad la socotaanba muddooyinkii ugu dambeeyey xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan ba dalka ka jirtay dalkuna wuxuu u eegyahay hadeer mid xisbiya u jiitay xisbidii ugu waaweyn waddanka isku hayay nabadii nolol iyo xisbigan tiimdama jadiidka ay leeyihiin bay ahaayeen waxaan u malaynayaa dagaalkaygu bilow ilaa dhammaad wuxuu ku saabsanaa inaan anigu ahaa xubin ka tirsan taabacsan siyaasad ahaan nabadiyo nolol oo uu hogaamiye u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka
muddooyinkan xiisayaha siyaasadeed ee dambe ay bilaabmeen qofka kula doodaya markaad istiraahdo dagaalka xaguu kaaga yimiyey sidaad ku xaqiijin kartaa qofka kula doodaya macaaridka xilligaa ahaa haddana maxaafidka ah wuxuu kula doodayey sidee baad u taageeri kartaa dowladda hadda jirta sidee baad farmaajo nooga raaci kartaa sidii farmaajo inuu yahay qof meel joogo xaafadiisa fadhiya oo umal bahayn madaxweyne qaran marka taasi waxay cadeynaysay weerarka ugu badan inuu ahaa oo dowladda xilligaa jirtay oo aanu ka mid ahayn taageerayaasheedii isla markaana aanu ka mid ahayn dadkii la shaqaynayay ee qaybka ahaa waxaan aragnay facebookaagii oo lagu qoray remembering qof dhintay mana aha qofkii koowaad ilaa qofkii saddexaad ba ahayd baan u malaya soo far dadka siyaasaddii dowladdii hore taageerayaasha oo ahaa lala beegsaday arrintaa ah dhimasho in loo rikoor gareeyo ama loo diiwaan geliyo process bay qaadanaysaa kolley waa lasoo furi doonaa pageka haddaan la furina kuwo kalaa la furan doonaa macno male baraha bulshadu waa iska wada badweyn xor ah oo qofku haddii page laga xiro mid kale furan karaa dadku way helayaan qofka hadday rabaan lagamana hor istaagi karo qof lama caburin karo baraha bulshada lagama caburin karo sidii mainstream media looga caburin jiray loogama caburin karo waa ilaahay mahadi waxaa kaa horreeyey cali yare iyo nin la yiraahdo siyaasi cali daacuun adiguna waa ku xigtay qofka saddexaad ba ahayd soo far intaan arkay maxaa is leedahay waad galabsateen oo aad ka siman tihiin yaase arrintaas campaignka ka dambeeyaad isleedahay hortu inta aanan waxa aanu galabsanay ama aanu aanaynayno in nala caburiyo aanan u gelin waxaan doonaya inaan idhaahdo nimanka tirada hadda waddanka la wareegay qof nool oo dunida isagoo xaya maraya shahaado dhimasho u sameeyey ku qoray oo dunida u sheegay inuu dhintay doorto qof noola socda ma dayn lahayn qofka noloshay ku aasi lahaayeen waxaan doonayaa marka inaan idhaahdo ma jirto waxaan galabsanay oo shakhsi ah kala aragti duwanaanshuhuna oo waxa nolosha dhadhanka u sameeya keliya waxaana laga raacay maxaad nooga aragti duwan tihiin marka dowladdu waxay hilmaansan tahay haddii dadku ay noqdaan dadku aragti ah inaysan jirin isla xisaabtan guud ahaanba oo qofka macaaridka kaa soo horjeeda oo qofka la xisaabtamaya oo dalka kula ilaalinaya si kale marka loo dhigo dowladda cawaaqib xumada kaga iman karta qof public figure oo kumanaan iyo boqolaal kun oo qof haysta inuu caburiyo weli ma dareensana haddaan si kale hadalka u dhigo adigoo daar quraarada ku jiro horta qof guul ku jira lama shiido oo way kugu dumaysaa in aad caburiso qof figure oo taageerayaal leh oo aad tidhaahdo ma hadli kartid waxaad ku waayeysaa shacabkii ay ahayd inaad jacayl ka kasbato inaad u adeegto qofaan ku rabinna uma adeegi kartid waayo daarta waa kugu duminaya marka taasay ilowsan tahay inahaas marsle ay ku saabsan tahay wax kalena lagu haystay oo colaado aan samaynin ma jiro dembi qaran maanu gelin hanti maanu dhicin isbaara maanu samaysanin ma jiro dembi aanu galnay aad iyo aad baan u fahmay cid aad ku tuhunsan tihiin miyaa jirta mise dowladda aad ku tuhunsan tihiin inay ka dambayso sheekh waxaan rabaa inaan dib kuu celiyo arrintani hadda unbay dee baraha bulshadu timi laakiin arrintani mudday jiitamaysay dalku waxaan doonaya inaan maskaxdaada dib ugu celiyo 2020kii habeenada ka mida baa waxaa layga soo wacay saldhigga waa beri marka anigu degmada aan deganaa xamarweyne ahayd sidaasi darteed saldhigga waa beri degmadeeda ma xukumaynin taliya saldhigga waa beri baa soo wacay waa rabadaantii 2019 xilligii lockdownka lagu jiray wuxuu igu yidhi waxa lagaaga baahan yahay oo taliya hebel waxa lagaaga baahan yahay saldhigga waa beri waxaan ku idhi maxay soo galay taliya wuxuu igu yidhi taleefankaaga ma sheegi karno imika inaad noo timaado ayaan rabaa waa 9 habeenimo waxaan ku idhi taliya waxaan kala garan lahaa inay aqoon xumo ku hayso iyo inaad bareerayso anigu degmadaan deganahay ma taqaanaa wuxuu igu yidhi xamarweyne degan tahay waxaan ku anigu xamarweyne degan sidee baa guddoomiyaha saldhigga waa beri aniga ii soo wacan karaa degmadaydu waxay leedahay saldhiggaygu wuxuu leeyahay guddoomiye iyaga ayaa xaq u leh haddii cidi wax ka tabanaysa inay iga soo wacdo waad khaldan tahay waa ku damiye teleefonka isla habeenkaa goor aan ku qiyaasay kowdii iyo barhkii habeenimo gurigayga saadiq jan wuxuu usoo diray ciidamo
إذا بكوسة يا كوسة ciidan Saadiq John صادق جون تليه بوليس taliyihii booliiska markan uu ii soo dirayo ka hor Saadiq boqol jeer bii soo wacay inuu numberkiisa ma haynin sideedabana numberada aan garanayna ma qabto markuu ciidamada ii soo diray iyadoo ciidamadii la murmaayo baa ilaahay u naxariistay taliye Calooley oo marka degmada Cabdicasiis saldhigeeda taliye ka ahaan u maleynaya taliyihii dhintay markii dambe isagu waa beri haysta la dili jiray dad xasuusato taliyahaas ayaa isna soo istaagay wuxuu igu yiri markii waan ku soo sheeka dhaafay anigoo is haysana ciidankan kule waan idin raacaya laakiin waxaan u baahanahay inay warrant ii keentaan buu Calooley soo istaagaya Calooley markuu soo istaagay aniga wuxuu igu yimi inuu badbaadiyo nimankii buu la hadlay anigii Calooley baa isku soo hadhnay waxa loo diray Saadiq John telephone Saadiq wuxuu igu yiri af buuxa Naciima postiga Facebook-gaaga yaala waad saaraysaa Twitter-ka postigaaga yaala na waad saaraysaa raali gelinna waxa siinaysaa dawladda Djibouti maxay ku saabsan xilligaas marka waxa jirtay nin duuliye ciidamada Djibouti ka tirsan oo inta dawladda Djibouti xidhay la jirdilay muuqaalkiisa baraha bulshada la wareejin jiray oo Fuaad loo oran jiray baa jiray duuliye Fuaad naam waxaan ku iri sababta aan u saarayo iyo adigu markaad ila hadlayso qofka tahay ma raba inaan ogaado ma waxa amarka isiinaya Saadiq oo booliska Djibouti haysta mise amarka waxa isiinaya Saadiq oo booliska Soomaaliya haysta ayaan weydiiyay wuxuu yiri safaaradda ayaa ka soo dacwatay xubin sare oo nabad iyo nolol aan weerartay bay tiri sidaas darteed waan raali gelin buu xabixisaa waxaan ku dhigay anigu dadkaad u dhaaratay ee xataa haday Djibouti ku soo duusha ay ahayd in difaacdo ayaan anigu ahaa postiga ma saarayo waxa doonaysa sameyn markii ay teamku sidaa iga bixeen waxaan hore ka wacay nabad sugidda qaranka Soomaaliya xilliga waxaan ku soo badbaaday teamkii dalka taladiisa haystay mar labaad waxaan rabaa inaan maskaxdaada haddana dib u celiyo 2021 maalin anigoo dikaale shir ka soo baxay baa waxaan iska hornimay taliyaha hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka haysta mahadsalaan anigu ma had weligay telefoon kala ma hadlin ma aqoonin baraha bulshada ka hor noloshayda isagoo socday isagoo aan wada hadlay doona ma jirin waan isa salaamay wuxuu igu yiri Naciima xamar joogis bay ka rabtaa bas sidan u dhiiran tahay xamar joogis bay ka rabtaa sida aad ku joogi lahayd ayaa la iska rabaa waxaan ku dhigniyo meeshan Google 4.5 la yiraahdo ayaa taala Soomaali oo dhan baa hadda waa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahadsan marka xildhibaan qaran buu ahaa waxaan ku yiri bartanin wada joogno waa Muqdisho sida adigu gurceel watimid ban Hargeysa uga imi Google 4.5 la yiraahdo halkan taala nin waliba geeskiisa inuu kaga fadhiyo xaq u leeyahay haddaad qabyaaladii reerar rabto dhashii ka soo qaada hadduu reerkiinu kaayo ka adkaan jiray waaga saasaa ku kala tagteen mar labaadan dib kuu celiyo allah yaraxme walaashay xildhibaanada Amina markii la dilay niman mas'uuliyiina oo dumajidid gacanta koobaad ee Xasan Sheekha baa soo wacay waxay igu yiraahdeen qofka nabad iyo nolol lagaga aarsanayo ee Amina loo dilay adiga xilligan waxaa ku kulanay VIP-da airportka Soomaaliya oo marka aabahay waxaan usanayo Turkiga jooga ayaan socday mislan anigu waan maqnaa maalmo yar kadib bedel baa la dilay marka inta laga yimaado hanjabaadaha kale ee gudaha nagaga imanayay ee taliyeyaasha dadkaas ma sheegi kartaa magacyadooda mise hadii loo baahdo gadaal baan ka sheegayaa waana dad madax ah oo madaxweynaha hadda qaarkood hadda taliyayaal yihiin qaarkood uun gacan midig oo Xasan Sheekh ay yihiin marka handadaad iyo dhaar joogto ah baa meesha ka jirta haddii caqliga saliimka ah dee aynu ku fiirinana
mas-uulkii qarankiisu maanta dhan leeyahay halkaad geli lahayd baa lagaa rabaa sabab u joogi karaa ma jirto anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliya ku dhashay ku koray wax ku soo bartay iyagoo arkaya boqolaal fursadood oo ay wadanka kaga bixi karayaan aan jeclayn inay wadankooda ka baxaan bas jecel inay joogaan ma jirin sabab kale oo aan wadankayga uga soo carari lahaa waayo Muqdisho xilli ay hadda ka xuntii baan joogay 2016 kana Muqdisho sabab kale oo uga carari karaa ma jirto damujadii tiimka wadanka qabsaday baan wadankayga uga soo cararay waxa jirta oo isoo gaaray masawir baasaboorkaaga iyo baasaboorka ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Terra waa la weydiiyay meelahaas ka hadlay dhowr jeer arkay iyadoo waxaan arkay meel lagu wareystay nin dhalinyaro wareystay baan arkay waana weydiiyay aniga laftigaygu ii cadeeyay in baasaboorkiisii ay tahay baasaboorka baraha bulshada lagu shaaciyo baasaboorkaasi kaaga ma yahay baasaboorkayga waa gatay yaa hayay masawirkiisa oo shaacin kara anigu sidaydaba waxaan ku jiraa dadka aadka u ilaaliya dokumentiyadooda shakhsiga ah iyo noloshooda guud ahaan ay tahay mid iyaga ku kooban oo banaanka laga ogaan karin wax waliba hadday dhacaan oo xataa loo baahdo inaan magacayga iyo baasaboor nambarkayga dirmano weligay baasaboorkayga Facebookkiisa cid uma dirin maalin ka hor markii Facebookayga la xiraayay reportka gudihiisa saaxiibaan ku leeyahay bay soo wacay waxay ii sheegeen in safarkaygii ugu dambeeyay daatadeedii laga baaray reportka gudihiisa baasaboorkayga loo xiro marka halka ceebtu ka dhacday waxay tahay magaca taqaano ee Naciima Abwaan Qorana la yiraahdo dadku ii garanay aniga dokumentigayga kuma qorna sidaas darteed qofku si fudud baasaboorkayga xataa haduu raadiyo kuma heli karo marka waa inuu heli karo dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyay reportka ka sameeyay si uu soo helo baasaboorka magaca igu qoran markii la soo helay immigration ka la tagay wala soo daabacday dokumentigayga shakhsiga haba Facebook lagu baahay yaa baahinaya oo soo saaray aniga hadda xilliga dadkii baarayay teamna mas'uulka ka tirsan bay ahaayeen waqti xaadir baan isleeyahay cidda haddana markaana baadhay haddana airportka ka soo qaaday waa iyaga haddana isla iyagun baa baraha bulshada ka waayo qofka baarayay sabab uu baadhay baa jirtay marka anigu cidaan iyaga baasaboorka waxa ku qoran inaad ku qaadatay service inaad ka tirsan tahay bulshada rayidka ah ee dad dawladda u shaqaalaha rayidka ah ee dawladda masaxba وصح anigu dawlad baan u shaqaynayay sidaas aanan baasaboorka ku helay sidii baan u haystay all of a sudden isbedelkii markuu dhacayna degdeg baan wadanka uga soo baxay baqdinta darteed haddii aad tagtay Turkiga haddana ay arrintaasi dhacday maxaa ku xiga igu cali maxaa tala ah hadda qorshuhu muxuu yahay maadaama baasaboorkii qofka horta Soomaaliga ahi jinsiyadiisa iyo baasaboorkiisa waxa difaacaya qodob dastuuriya in la shaaciyay waa aragnay laakiin in systemka laga saaray oo la kansalay ma ogaateen safaaradda ma ka ogaan kartaa ma se ogaateen safaaradda kama ogaanin laakiin anagu meel walba saaxiibana ku leenahay waaga ibadayada gudaha jooga ayaa noo soo sheegay markii aanu ka hadalnayna sidii ciyaalka YouTube leedahay marka ficil la sameeyo reaction ka bixin jiray ba migration reaction meel la soo istaagay maanu kansalin waxaan u arkaa inay tahay talaabooyin fulinimo ah haddii anaga dambina loo haysto oo la dacweyn karaa wadankayga waa tagi karnaa cidiina dacweynaysa waa iska difaaci karnaa haddii la leeyahay baasaboorku waa shaqaale maadaama idaan shaqaale ahayn waa idin kala noqonaynaa sharci loo maraa jirta sharciga hala raaco ma garan karayo dee waxaan u arkaa un ficilo dadaan nolosha faham badan ka haysan ku dhaqaaqayn inay tahay arrintan labadiinna maxaa laydin beegsaday maxaa is leedahay labadiinna oo aad ka simantihiin oo kaga duwan tihiin dadka kaloo shaqaalaha ah annagu figures baanu nahay qofku markuu public figure yahay dad baa ku xidhan haddii qofka public figureka ay kaa soo horjeesadana
mar walba oo aad doonto inaad tallaabo qaato waa qofka ku daba socday ku daba gelaya adiga iyo bulshada istusaya marka inaan un ka aragti duwannahay dad bulshadu taqaano oo lagu xidhan yana aan nahay ayuun bubeegsay si guud u daarnaa baan isleeyahay waxaad ii sheegtay handadaada isdaba jooga iyo jawaabo runtii munaasib ah meeshu waa caasimad waana loo wada dhan yahay joogisteeduna uma baahnaa dad gaari inay sponsorship helaan runtii dowladnimadii maba dhowaba haddii magaalada qofkii beelo kale kasoo jeeda uu yani muhadad ku yahay oo naftiisiiba khatar la gelinayo waa lagu dilaya weliba dhalinyarada iyo magaranaysaa dadka midnimadoonka ah si gaar ah bay aniga arrintaasi ii taabanaysa aan u dareemayaa ma isleedahay cawaaqib xun bay reebi kartaa dhalinyarada kale oo yani ku dhiiran lahaa inay soomaali weyn iyo soomaali midnimo iyo raadiyaan suurtagal ma tahay inay dhib u geysan karto hortu sheekh waa taariikhda soomaalida waa markii ugu horreysay ee madaxweyne soomaaliya madaxweyne ka ah oo leh ummad soomaaliyeed baan madaxweyne u ahay oo ku dhawaad 20 milyan oo laba gobol shalay midoobay xurgufi kala gaadhay wax kala tabanaya uu muwaadiniin ka soo jeeda dadkii wax ka tabanayay uu kala noqdo baasaboor in aniga baasaboorkayga shakhsiga la noqdo aniga ima taabanayso waxay taabanaysaa dadka reer Somaliland waxay taabanaysaa ummadda Soomaaliyeed ee midnimada jecel waxa ay taabanaysaa qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya oo marka lagala noqdo jinsiyadda macnaheedu waxay tahay mid Soomaali annagu haddaan Soomaalihin Ethiopian baan iyo saashwaas marka dad xataa dad shalay toole ku dhiiranaa Soomaalida inay mar labaad isku soo noqoto wixii dhacay xalay dhalay laga noqdo dadku ay helaan dawlad sharaf iyo karaamo leh oo ay ku hoos noolaadaan ee cadaalad iyo sinaan ka helaan ayaa maanta dib u didaya oo waxay leeyihiin adaan ku arkaynaayo naga tagay anagu xageen u soo socon waxyaabihii iigu yaabka badnaa inan baa maalin dhawey toole aan rabin inaan magaciisa sheego oo public figure oo la wada garanayo baa wuxuu igu yidhi markaan arkay muqdisho waxa ka socda wallahi Ethiopianimadeeda waa ku qanacay marka anigu Ethiopianimo kuma qanci karo qof Soomaaliya sharaf leh baan qadiyadii midnimo u taagan ilaahay Ethiopian igama dhigo daliya dad iga haysan gobonimo nagama dhaxayso laakiin waxaan leeyahay fariin khaldan iyo gaf ummad Soomaaliyeed laga galayo oo culus oo taariikhda baal madow ka galaya dhaqdhaqaaqyada damo jadiid ummadda Soomaaliyeed u geysanayaan haddaad tihiin ugu dambayn dhalinyarada taageerayaasha iyo adigu waxaad kaga duwan tahay adiga iyo Cabdirasaaqaba shaqaad la qabanaysaan active work baa dawladda u haysay maadaama madaxweynihii iyo ragga ugu waaweyn oo dawladda taageersanaa ay leeyihiin dawladda cusub ha la taageero arrintaani raad intee leeg bay ku yeelan kartaa hortu waan wada ognahay kooxda talada dalka la wareegtay shacabka Soomaaliyeed sas weyn bay ka qabeen shacabkii saska ka qabay wuxuun bay tusinay dad anigoo kala sharaxan waxaan islahaa waxay heleen fursad mar labaad qaladaadkii shalay toole ummadda Soomaaliyeed ka galeen ku saxaan hadda si muuqata dad fursadii ay heleen ka faa'iideysanayo oo qaladaadkii shalay toole ay galeen saxayo oo ummadda Soomaaliyeed isku soo jiidaya inaanay ahayn ummaddii Soomaaliyeed intiis lahayd sidayda oo kale waxbay bedeli doonaan laftarkooduna waxay u egyihiin inay 100 tallaabo dib u qaadeen oo qofka isagoo aan weli 40 bixin ficilada noocaas ku kacay ma garan karayo 6 bilood iyo sanad iyo 4 sano waxa laga sugi karayo marka dawladdu isma oga daawac weyn bay u geysanaysaa annagoo kale haddayna taabtaan annagu waxba nagama gubanayaan cidda dadka waayeysa dalka aan maamuli karaynin berri toole aan mooshin ka degi doonin waa iyaga wayna idamqaysaa runtii in dalkaygu qas iyo qalalaase iyo balaayo ku jiro waayo anigu xukunkii hore xasan sheekhna waan joogay 6 bilood baan ayaan u shaqaynay akademiyada qaranka agaasimaha dhaqanka ka ahaa haddana waan joogaa tii farmaajina waan joogay
marka cawaaqib xumo balaaran baa meesha ka soo socota dhaawac weyn baan u geysan way u geysatay marka haddii ay caqli leeyihiin iyaga laftarkooda bal muraayadda mar labaad isku daawadeen anigu si babliga baan dowladda waxaan idhi hala taageero hana lala shaqeeyo welina qodobkaas kama tanaasulin waa ku taaganahay si gaar ah buu madaxweynihii hore iiga codsaday maadaama aad hadashid nin oday oo wadaada tahay dad badani kugu xiran yihiin waxbaad dowladda tari kartaa taageeradaad waxbay tari kartaa ee taageer buu igu yiri welina anigu mowqifkaasaan qabaa dowladnimada iyo dhibaatooyinka iyada ay wajahayso oo tirada badan dartood anigu taageeraan u ahay waana taageeraya insha allahu tacaala intii la taageeri karo laakiin mar walba wixii khaldan waa saxaynaa bilatii axsan iyadoo si wanaagsan loo saxayo maxaad kula talinaysaa madaxweynaha oo fariin aad u diraysaa madaxweyne xasan sheekh maxamed waxaan kula talin lahaa mudane madaxweyne haysta fursad qaaliya annaka wax kastood nagu samayso dalan Soomaaliya hayn ma lihin dadan dadka Soomaaliya hayn ma lihin sida annagoo boqol gaf ka tirsanayno aanada fartan bixin haddana waxaan diyaar u nahay in dalka iyo dadka loo wada adeego fursadda aad hadda haysataa waxay tahay shalay tolo waxaad sheegtay ma jiri doonaa argoosi siyaasadeed waxaad tiri tareenkaygu dadka oo dhan buu qaadaa anigu kama mid yihi dadka raba tareenka inay koraan dabcan oo ay ku cidhiidhiyaan laakiin inaan dadkayga iyo dowladdayda anigoo aan cidna xid u haynin u adeegaan diyaar ah oo madaxa saarto waxaan kula talin lahaa mudane madaxweyne dadka Soomaaliyeed weli fursad baad ka haysataa isku day dadka qulubtooda inaad kasbato waa sababta kaliya ee dowladdaadu ku shaqayn karto hadday dadku ku gacan dowladdaadu shaqaynayso intaasaan isleeyahay waa ku beerin kartaa aad baa u mahadsan tahay runtii waxay ahayd fursad qaaliya inaan ku waraysano xogtaadana ogaano from first hand sheekh waxaa kaloo jirtay awd raali ahow inta aynaan barnaamijka gabagabadiiba ku dhow yahay gabagabadiisa u gelin waxaa kaloo jirta waxyaabaha aan isleeyahay malaha xasan sheekh inuu dib u eego oo uu dhegeysta ay ka mid tahay anigu gabadh baan ahay gabdhuhu waa lafdhabarta bulshada Soomaaliyeed nin kasta oo madax ah waxa korsay hooyo waxa taabashaysa gabadh u dhalay ama mid uu qabo in gabadh hadday ka aragti duwan tahay erdigeeda iyo sharafteeda aad ku xadgudubtaan waxa ay meel kaga dhacaysaa qiyamkeena ummadnimo tusaale ahaan aniga oo kale macaaridnima lay haystay maalin rabadaana maxaafidnima lay haystay xilligii oo campaignka lagu jiray iyadoo rabadaan tahay tobankii dambe rabadaan lagu jiro aad garan rabadaan oo qiimaheeda aynu naqaano haddana tobanka dambe qiimaheeda aynu garanayno waxaa la gaadhay heer waa naga aragti duwan tahay keliya inaan aniga islaam tuuran oo afrikaana wejigayga lasoo saaro la qaado si aniga yatibiyo waxaad isweydiinayaa marka aniga cidna far igama hayso laakiin waxaan isweydiinayaa gabdhaha yaryar ee da'yarta ah ee maanta doonaya inay siyaasad soo galaan ee maanta doonaya inay figures noqdaan ee maanta doonaya inay dalkooda wax u taraan haddiiba anigii fikirka haya istifaaci karaya ee badan ka dabaalan karaya sidan loo gelayo sidee baa loo geli karaa meeqaa gabadh la handadaa meeqaa gabadh maalin walba agarta suuqa inaa la jiijiido because waa naga aragti duwan tahay ama waxaan rabnaa noo fulin weyne marka gabadh ahaan haddii aan dhaqaalihii nin u daba fadhino haddii aan waxbarashadii nin u daba fadhino haddaan shaqadii nin u daba fadhino haddaan siyaasadii nin u daba fadhino raggo laftarkooda aanu daba fadhinana annagu nahay kuwii dhisay wax ka soo dhigay ma waxay soo gaadhay xataa sharafteedii inay badbaadi weyday waxaasoo dhan nagoo qabno iska aamusan sharafteedii inay badbaado xataa badbaadi weyday ma soo gaadhay waxaan leeyahay damujadid waxay caan ku yihiin ummadda sharaftooda iyo cirdigooda inay farageliyaan siiba gabdhaha dowlad aan gabadh lahayn iyo guri aan gabadh lahaynina sharafna male mana bilna meel lama gaari karo dib ha ugu noqoto gabdhaha anshaxumada lagula kacayo ha laga laabto oo ummaddu dhaqan bay leedahay si ahaan deegaamada anigu ka soo jeedo gabadh dhiig baa ku daata gabdhaha
haddaan waxba lagu taraynin waxa lagula kacayaa laga laabto ugu dambeynta waxaan kusoo gabagabeynayaa hortu Soomaaliya dowladnimadeeda marka laga hadlayo dee dadka xilalka ka qabanaya waa dad Soomaaliyeed marka si kale loo eego 4.5 bay ku fadhidaa oo reeray ka yimaadeen qofka Soomaaliga ah waa inuu fahan wanaagsan ka haysto adeerka marka xil loo dhiibay inuu adeernimadii horta ka baxay ma aha caaqil reerkiina ah ma aha adeerkii tuuladiina joogay mana aha walaalka ayaa abaha ninkan waa mas'uul ummad Soomaaliyeed wuxuu mas'uul u yahay ummadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo dhan wada leh haddii waa la dhaliilayaa wanaagu sameeyay baa la sheegayaa kuwa nacaya kuwa jecel kuwa nooc walba ayay leeyihiin isugu jiraan dadku haddaad rabto markuu qof dhaliilo inaad soo boodad u haysato in reerkiini la ataagay dacdar ummadda Soomaaliyeed ka hor leexiyo xaafadiini la tagaadhiga u diro ama caaqil reerkiina ka dhigo ma ahaan karayo mas'uul ummad Soomaaliyeed وأنا أقبشت إنه أنت هذا كبحي أو مسؤولية ما أقبليشيت كحيصو قف أقبل يا لكلينيا لكن مركي لا تعتبر هيك ولا تعتيي ولا تاني بس هو ديار سنبا يوحي دالين مش خاينس برارك يو حراها يدين راعده عادي لو درتها ماشي ما جبت أقدر كوا كبحي مركو حيل Soomaaliyeed قبتها أقدر نمدي ما تبود حد سلام ورحمة الله الله كبرك يا ذا halkaas ku joojinayna insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh runtii waa aragnaa waa igu qoslisiisay aad iyo aad bay igu qoslisiisay waa yaabay waxaan isleeyahay qoftan gabar dhalinyaro ah waay baa nooca loogu aflagaadeynayaa waay sabab warilaa qoftu waa gabar u dhiganta 100 nin yaabay keligay waxaan arkay rag caayayaan arkay oo hadda caadiya caayaya waa baaray social media aad baan uga dhex baaray hadallada ay soo qortay oo hadal caadiya wax weyn maaha laakiin waxaan isri bal gabadhan iyadoo gabayaysan helay nacayb abu baan qoraa markaan saa ugu dhufto iyadoo gabayaysan gabaygan wax ku hoos duugan ma ogeyn Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka ragii shiqaate nin la yiraahdo jira oo halka markuu wax ka arko malaha waxa jiray qoftani wuu is ogeyd abeenadii dawladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dhacdayba dalka wax ka soo baxday qof bala ah oo is og oo iska warqabta marka waraysigan hadda arkaysaan baan macnaheeda iyo gabadhan iyo waxa ay tahay ii soo baxday waxaan u arkaa marka inay tahay boqol dhaan waxa la yiri waxa jira waxa ninka raga ay ku ah ceeb ku ah oo aan u wanaagsanayn ninka raga macnaha wax ninka raga baan ku ah wanaag iyo sharaf iyo qiimo iyo qaayo iyo haybad iyo haykal iyo oo aan loogu jeclaado ninka raga laakiin hadday gabadha intaa haddii ay noqoto ay dhibaato ku tahay gabadhaas waa maxay gabadha aftahanada ah oo geesiyada ah oo tabaha taqaan oo meesha wax laga qaniini karo iyo meesha laga kalluumay taqaan ma wanaagsana bay dhahaan oo ninkeeda uma wanaagsana sababtoo aan nin bay iska gursanaysaa naagtuna waa indheer garad bala ah oo ka aftahansan oo dig bay ka siinaysaa isla markaana waxay arkaysaa kan inuu waxba ahayn iyadii laftigeeda wax ku dhacaya in iska furto kan mid kale ragii oo dhan baa moogtay wax kale oo noqonay laakiin ninka ragii markuu nin bala ah oo cabqari oo caqli badan oo hadal fiican oo yahay sharaf bay u tahay gabadha waxay dhahan laakiin nusqaan bay ku tahay taas haatan waxay soo baxday naciima inay tahay qof aftahamada ama 10 nin ha caydo ama 20 ha caydo ama hal la dhaho waa dhimatay
ama wax kasta ha la dhehe qof kolba la aaminsan karaya inaysan ahayn baa ii soo baxday haddaan fiiriyey gabdhaha Soomaaliyeed waxay inooga baahan yihiin difaac laakiin waxaan anigu aaminayba abwaanad naciima inaysan difaac u baahayn afkeedaaba difaac uga badan intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu walow ay tahay gabar Soomaaliyeed oo in la difaaco mudan